wadooyinka cudurradu ku faafaan Smith Weger cudursiduhu wuxuu jirka qofka u soo galaa habab kala duwan sida isqaadsiin toos ah direct contact ismita, isqaadsiin aan toos ahayn indirect contact ismita, dhibco cudursidaa drop ismita, boor cudursidaa lift buuran ismita, dhiiga blood ismita, cayaanka cudurrada faafiya insects buuran ismita, iyo biyaha iyo cunnada wasaqaysan livsmedels buuran ismita. dii aynu ku horeyno isqaadsiin toos ah waa marka qofka cudurka qaba uu si toos ah ugu gudbiyo qofka kale isagoo ku salaamo gacan wasaqaysan ama dhunkado ama u galmoodo. si arrinka looga hortago waa in gacmaha la mayraa alkolana lagu dhaqaa. haddii uu qofka qabo cudurka loo yaqaano herbis waa in uusan dhunkan qof kale. isqaadsiinta aan tooska ahayn waa marka cudursidaha la isku gudbiyo iyadoo la taabto meel gacmo tire ama dhar wasaqaysan. si looga hortago arrinta waa inuu qofka og yahay ilaha uu cudurka ka qaadi karo ee hareerihiisa ah. sidoo kale waa in had iyo jeer gacmaha la mayraa. waa in la isticmaalo gacmo gishad. dharka waa in lagu mayraa 60 heer celsius si loo dilo cudursidaha drop smita, dhibco cudursidaa. qofka xanuunsan marka uu qunfaco ama uu hindhiso waxaa ka soo baxo dhibco cudursidaa oo haddii ay gaaraan qofka kale qaadsiin kara cudur. waxaa wanaagsan in qofka gacanta afka uu saaro marka uu qunfacayo ama uu hindhisayo si uusan qofka kale cudurka u gaarsiinin. boor cudursidaa. dhibcaha cudurka sida waxay gaaraan meel fog. haddii ay dhulka ku dhacaan waxay wasaqeeyaan ciidda. boorka ciidda ka kaca waxa uu sidaa cudur oo haddii uu qof sanka ama afka ka gala wuxuu u gudbiyaa cudur. dhiiga blood smita. dhiiga in uu cudur gudbiyo waxay dhacdaa marka uu maqaarku dhaawac gaaro, nabar furan uu jiro, ama dad cudur qaba ay isu galmoodaan, ama la isticmaalo cirbado wasaqaysan. dhiiga lagu shubo qofka wuxuu keeni karaa cudurrada cagaarshowga, cayayaanka cudurrada faafiya. cudurrada waxaa lagu gudbiyaa iyadoo qofka uu qaniino cayayaan. tusaale ahaan cayayaanka wuxuu qofka u gudbin karaa cudurka loo yaqaano malaariyada oo ah cudur dad badan dila. swilan halista in cayayaanku ku soo gudbiyo cudur waxay badan tahay xilliyada kuleelaha. sidaa daraaddeed waa in uu qofka cagacadaan ku marin cooska dhaadheer xilliyada kuleelaha. biyaha iyo cunnada wasaqaysan. cudursidaha waxaa lagu soo gudbin karaa iyadoo qofka uu cuno cunno wasaqaysan ama uu cabo biyo wasaqaysan. cunnada waxaa wasaqeeya bakteeriyada loo yaqaano salmonella. sidoo kale biyaha waxaa wasaqeeyo bakteeriyada loo yaqaano colibacter. si looga hortago waa in la baaraa nadaafadda biyaha iyo cunnada. degmada ayaa u xil saaran inay ilaaliyaan nadaafadda biyaha iyo cunnada.